arrimaha laga cabanayo oo xagga awood la'aanta ah waxaan soo tijaabinay accesska laga helo salaadaha sunnaha inay ka fiican tahay tan laga helo waxyaalaha kale midda kale gabdhii way soo wacayaan waxay leeyihiin ninkan biyaha sii deynay maxaa loo haysaa waxa markaan wiilkii waraysto oo aan yiraahdo bal wiilka warbaxa sababay arrintan wuxuu ku leeyahay 10 sano siigisanay ma baashu ha masiibo wataan ku tibaayo masiibo qaran mar labada xaniyood baa qofka dheeraanaysa hoos aadaya mar way kala dheeraanayaan mar xaniyihii xubinta taranku yaraanaysa oo ninka buufs baa ku dhaco wala sixro yiraahda haweenka afar nooc ugu dhaca galahu mar xilliga macduurka ku xanuunsatay oo nabar yaqaan labada waa yeelataa mar waxa burbura xilligiisa oo muqaddamaad iyo mutaakhir buu keenaa laba jeerna cayntiisa isbedeshaa xilliga oo tagayurka iyo burburka keeno gabadha uu kunteeda dhimanaysa ribi mayso haday rintar waa dhicinaysa qaaliban assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh alkan anigu Dr. Chama waxaan mahad celinayaa marka koobaad alle marka labaadna TV-ga hade waxa kale oo halkan aan elaan uga gudbinayaa dad fara badan oo daawadayda sugayay oo jooga Boosaaso aan jooga maantay Boosaaso daawadii aan wadno jimle iyo tafaariiqna aan diyaar lanahay waxa alla mahadiisa Ilaahay inuu ugu guuleeyay kiisas badan oo ay ka mid tahay sokortu gaasku iyo xanuunkii loo oran jiray neerfaha waxaan halkan uga baaqayaa dadweynaha ku xiran Daaru Raxma inaan soo kordhinay xarumo fara badan daawadeena laga helayo Nairobi waxa laga helayaa wadanka la yiraahdo magaalada Wajaale waxa laga helayaa magaalada Marqaan waxaan kale ugu bishaarinayaa dadweynaha inaan sameeyo qiimo dhimis dhalinyaradaas gaar ah waataan ku yiri baalka inoo la ilaaliyo waxaan soo tijaabinay arrimaha laga cabanayo oo xagga awood la'aanta ah waxaan soo tijaabinay accesska laga helo salaadaha sunnaha inay ka fiican tahay tan laga helo waxyaalaha kale soo tijaabiya dhalinyaro access waxa ku filan salaadaha sunnaha ninka shantiisa waqti iyo sunnaha duu dhameystiro wax ka maqan ma jiraan xoojintiisii iyo awoodiisa way soo noqonaysaa arintaas waa tijaabo hor aan soo sameynay oo noqda xagga fiqiga baasha sigada la yahay la joojiyo dhalinyaro baashaas ceeb bay keentay waayo qofku markuu baasha soo sameeyo baalkii seeskiisina waa yaraanaya biyaha uu tufayaa xagga fiqiga ama xagga loo islaam baynu nahay waxay sameynaysaa waa damage ku sameynaysaa qofkii baashaas joojiya culimada weydiiya waxay diintu ka qabto caadi sariya ma fiicna caafimaad ahaan baysan u fiicnayn dhaqan ahaan baysan u fiicnayn mid kale guursada guurkii maanta waa raqiis gabdhihii wax shuruud ku xirmayaan guurkii qaaliga ah meherkii qaaliga ah gabdhihii way joojiyeen waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inay dib ugu noqdaan oo ilaaliyaan anshaxa iyo protokolka iyo arrimaha diinta oo isjoojiyaan sigada waxaan kale halkan ugu bishaareynayaa alxamdulillah kiisaskaas badan Ilaahay nagu asturay wadanka hadda China oo kale waan geynay daawooyinka maanta waa si toos ah ugu tagaysaa DHL-ka awl dad badan baa su'aal iga soo weydiiyay la geyn karaa wadanka China waa geynay bishan 12 baan geynay waliba saa waa inaa loo socotaan waxaan kaloo idinku baaqayaa dhalinyaro YouTube-kayga booqda Dr. Chama ilaalo talooyinka qaata salaadaha sunnaha iyo saliga nabiga aan balama sigaduna waa inaga mamnuuc lamaanuhu waa aniga kiisaska hadda Ilaahay guuleeyay waxa kamid ah xanuunka la yiraahdo galaha ragga 3 nooc ugu dhaca dumarkana 4 nooc ugu dhaca galanuug iyo galabar iyo galqanjir baa la yiraahdaa mar labada xaniyood baa qofka dheeraanaysa hoos aadaya mar way kala dheeraanayaan mar xaniyihii xubinta taranku yaraanaysa oo ninka buufs baa ku dhaco wala sixro yiraahda shahwadu waxay noqotaa wax muqaffafaad oo hadiiba soo boodaya mar waxa ka imaan mayaan caafimaadka Allah bixi daawadana sameeya xanuunka la yiraahdo haweenka afar nooc ugu dhaca galahu mar xilliga macduurka ku xanuunsatay oo nabar yaqaan labada waa yeelataa mar waxa burbura xilligiisa oo muqaddamaad iyo mutaakhir buu keenaa laba jeerna cayntiisa isbedeshaa xilliga oo tagayurka iyo burburka keeno gabadha uu kunteeda dhimanaysa ribi mayso haday rintar waa dhicinaysa qaaliban
daawooyin saxaya caadadii oo isbaamkiina dhisaya baa ilaahay noo sakhiray tilmaantaas waa taas waxaa soo haray xanuunka la yiraahdo galaha ciladahu keena waxa kamid ah adigu xaniyahaaga saa u taataa waxay noqonayaan sida silsilado kale u laalaamayaan wax operation kuma fiicna daawooyin furfuraya oo xaniyihii booshishkeedu ku soo celinaya baa ilaahay sakhiray marxaatigeena dee halkaas aad qaarkiisaan youtube-kayga dr jaamac ilaalo guushana allah bixi daawadan anigaa sameeya midda kale gabdhihii way soo wacayaan waxay leeyihiin ninkan biyaha sii deynay maxaa loo haysaa waxaa markaan wiilkii waraysto oo aan idhaahdo bal wiilka war maxaa sababay arrintan wuxuu ku leeyahay 10 sano aan sii geysanay